ay tarayso qofku inuu rabo inuu wax ku qabsado laba waxa wadanka Canada u dhisan yahay waxa la yiraahdo federal oo waa wadanka hadda nidaamka hadda aynu qaadanayno dalka Soomaaliya federalismka in lagu dhiso oo wadanka runtii tusaalaha u noqonaya maxay la wadamo yar federalism ama nidaamka ku shaqeeya sida Canada Australia Ethiopia oo ay ku cusub tahay dabcan iyo wadamo aan badnayn Canada Mareykanka oo ka duwan oo federaalkiisu uu ka duwan yahay kuwa hadda ay sheegayeen waa wadamada aad u yar wax weyn ay ka tali doonto nidaamkaas markii la rabo in la qaato oo saddex level wadanka u kala baxa levelka federal governmentiga iyo provincialka iyo municipalka marka gobolka ninka haysta sida goboladeena hadda Puntland oo kale ninka haysta premier bay ku magacaabaan bimacna waa president laakiin waxay rabeen wadankan president lahayn oo prime minister u sareeya maadaama wadan uu boqortooyo yahay boqortooyadii magaceedii haysato sidaas loogu magacaabay magac cusub laakiin premier wuxuu la mid yahay president marka gobolada marka ugu weyn Ontario kamida magaalada dalkana ku taalo magaalada aan joogana magaalada Ontario ay u tahay ayadana waxa la iiga magacaabay inaan ka mid noqdo wax la yiraahdo Council the College of Dental Hygienists of Ontario oo macnaheedu yahay waa qayb dalka caafimaadkiisa ka tirsan dadka regulate gareeya ama sharciyada u dejiya oo ka shaqeeya taasna qofkii ugu horeeya Soomaaliya oo meel bal loo magacaabo darajadaas innaga oo 200 kun lagu tilmaamo dadka Soomaaliya oo kala ku nool qofkii ugu horeeya oo Soomaaliya oo meeshaas taga baana taas waxa niyadeyda ku jirtay maadaama aan xisbiga wadanka muddo dheer u talinayay isagana memberka ah muddo 10 sano ah waxaan maskaxdayda ku jirtay inaan u sii gudbi doono darajooyin kale oo waxaan ku raadaa political arena ku tacalluqa oo aysan qariib ahayn maalin maalmaha kamida inaad aragtaan ama maqashaan anoo waxaan ku raadaa matalaya dalka Canada darajooyin kamida darajooyinkiisa kale oo siyaasiga ah taasi maadaama aan leynka ku jiray runtii Puntland saxayna markaa kuma jirin wax ka noqdo laakiin Puntland oo aad ugu weyn oo dadkaygii kamida shaqo badan oo kale baan u hayo ayaa ku haboon markii laga reebo wixii aan u qabtay markii laga reebo ama aan weli diyaar u ahay qodobka labaad hadiiba Soomaaliya iyadoo ku jirtay waxaan islahaa meel shaamil ka sareysa ka dagaal bilow markaysa Soomaaliya aad ka noqon karto madax أنا أسأل جدًا عبد الله يسمى هذا اللبرة كما كله لكن مستقبل يعني واحد ولجي تاس هذا الفكري إن سداس وقصة وفكري فرق الصدحات وأنا وفكري إن ممكن لأن مدح كان الله روحها فرق كله اللوجي هاي فضل ذلك الرواتشين تاع هذا الصوم هاي وكان آدي لو اللي يبقى إيرادان يمكن مدح ما ممكن لأن كان رمضان طوال وقتها العجل تلك باهظة أنا ولا تاس ممكن بريسمبل هذا ما أميسري وإذا تكلم جاتو دين إلى معها تضميننا إلى معها وحنجي علينا معها وما أميسري العقل وحنيلي لها العقل اللي ما بحيست وأيضا هو مشكلة كلا وأيضا إسكابجر أريمها يعني ممكن إذا أنا أقول لك هو الرمية أريمها أسي وحن بنا أقول فكرين كنتي مثلان أسيء شيء waxay ugu kalifay waxay ahayd in dad aad bogiyo wadana oo jecel ah oo dalkeennii aad qiimo badan u wada ila soo xiriireen bini aadam oo duruuftan maanta ka qayb qaaday markaan ku celiyay oo hadalkaygu uu ahaa dad wanaagsan loo raadin anigu waxaan aad u aqaanaa sida madaxda loogu campaign gareeyay anigu naftiisa sida loogu campaign gareeyay ma aqaan anaga qofkii aad doorataan baan idin la campaign gareeyay dad wanaagsan keena dadkii arrinka iga doonayay aad baa la igu celiyay hadalkii aad u dhaqaajiyay wuxuu ahaa aadam oo waxaad rabtaa inaad ka mid noqotid dadka oranaya dalkii iyo dadkii markay hagaagaan baan anigu wax ka qabsanaya oo ku noqonaya ama madaxtinimo ama dhismo ama waxelid markaas aan sameeyay qof waliba maalin buu leeyahay maanta aad ka mid noqon karto dadka dhibaatada dalka haya wax ka sii kara haddaad ka seexato hadda maalinta dambe waxaad noqonaysaa nin danti u yimanin maslaxadii dadka ka fekeray lagugu tirin maayo bal arrin waajib ku noqon kartana waad ka leexatay runtii arrintaas aad bay ii dhibtay
maxay ila dabciga anigu ma lihi shakhsiyan ana baan isku aqaan inaan ahay qof selfisha ama kaliya cunaa ama dantiisa jecel ama ummadda ka fog oo dhinacaas dhaqankaygana mana ahayn haddana noqon ma doono wax kaleba ha iga yimaadaan hadday marka saas tahay oo inaan servicekaygu wuxuu uu ka tari karo dalkii iyo dadkaygii inaan idhaahdo marka diyaar baan dadku inay i doortaan ama i geeyaan ama i diidaan waa hawl iyaga u taalla laakiin inaan anigu idhaahdo waa iga soo go'do diyaar waahay haddii waa idigu tuhmaayeen maaragtay idinku tiinii ka soo baxa taas baa horta igu kalifay waa maxaa igu kalifay inaan halkaa u soo baxo qodobka labaad maxaan rabaa waddankii inaan ka qabto ilaahay baa waxaan qaban doono aniga laftayda ka ogaalo ma ahay run ahaantii laakiin waxbaan rumaysnay wixii aan rumaysnaan baan idiin sheegi kow waxaan rumaysnahay dalka nabaddiisa inaan wax ka qabto number one bay ii tahay in nabadda dalka la sugo gaar ahaan gobolka puntland nabaddiisa in la sugo daaqil iyo dibad anigu aan political waddan lahayn waxaan ogahay dowladdii cabdillaahi yuusuf dalka waxaa qabanaysa waxna tasbir kuma samay wax kale kama qaban laakiin cabdillaahi yuusuf waddanka nabaddiisa aad iyo aad uu dejiyey waana ku ammaanaya runtii wixii kaloo aad ku dhacayso ama siyaasadda cid ka dhexaysa iyaday jirta runtii nabaddu shay aad iyo aad muhiim oo dalkooda waxaan jeclahay in qodobkaasi uu noqdo qodobka koobaad in nabaddu ay noqoto qof baadiye jooga iyo mid tuulo jooga iyo mid magaalo jooga iyo mid dad jooga iyo mid bari jooga iyo mid dalka imanaya iyo mid ka baxaya iyo mid dan kale qofna inaysan iishu u noqon masale uu ka jawaabo secondkood nabaddiisu ay tahay ee lagu yaqaan gobolkaas ammaan lagu yaqaan dadkeedana dad nabadeed baan ku naqaana taariikhdii 17 sano 18 sano oo waddanku burburay waddankaasi dalka wuxuu ku dhaafay nabad jacayl dadkiisa uu ku dhaafay oo lagu yaqaan marka wuxuu u baahan yahay maamul dadkaan nabadda jecel iyaguna nabaddii ku hogaamiye aad iyo aad aan rumaysnahay arrintaa waxyaabaha aad ii taabtay waxaa ka mid a inaan wasiirada kanada wasiir ka mida inaan la hadlay oo aan ku idhi waxaan u baahanahay inaad wax ka qabato badaha dalka puntland oo ah dal bad aad iyo aad iyo aad iyo aad u weyn leh khayraad aad u fara badanna ay ku jiraan ay dadkooda u baahan yihiin training ay u baahan yihiin yani qalab hawlaha ku socda ay waxyaabaha u baahan yihiin arrinkii buu iga qaaday muddo igala maqnaa wuu igu soo noqday wuxuu yidhi aadan I have a bad news for you walaalan ku farxin baan kuu haya oo waa maxay wuxuu yidhi you have a sea paradise in your oceans and seas bilaayada idin haysataa waxaa weeye bad jarayaal baa dalkiinii looga baqaya qola badaha goysa oo dadka badaha ku qabsata ayaa joogta nabadgelyada waagaa waxaan moodi jirnay oo annagu maqli jirnay qutaac turuq kuwa jidadka gooye ama waddooyinka dadka u fadhiista laakiin badgooyayaal waa hawl nagu cusub badgooyayaal baa soo baxay oo baddii nabad ma aha berrigiina nabad ma aha marka dhowna waxay khatar u tahay inay nagu soo baxaan hawadooyayaal inay soo baxaan oo hawadii sarana ay dhibaato u geystaan haddaysan helin diyaaradaha ay ku gooyaan oo ku duulaan iyo qalab gaara wixii samada maraya ay ku qarxiyaan hadday waayaan si kale badda u gooyan hawada u gooyanayaan oo baabi'inayaanoo contaminated bay ka dhigayaan way wasakhaynayaan oo maantay wararka socda oo aan aad loo ogay waxaa ka mid ah in ay jiraan dad waxa adduunka lagala dagaalamayo oo warshadaha hubka iyo kuwa suntu waxyaabaha nafaayaadkooda oo ka soo hara in la doonayaa soomaaliya in lagu aaso qaar kaleyihiin wuxuun ka mida baa waa lagu aasay oo wuxuun wax yaroo lacag ay ku qaadanayaan marka haddii hawadaada la sumeeyo haddii dhulkaagii la kala gooyo nabadgelyo laan weydo haddii baddaadii aamin noqon weydo maxaa marka ku ahay noloshu wuxuu waxaa nabad qofku markuu nabad helo ayaa kuwa u dhegaya nin ka mida u barakanayay dowladdii cartay oo ragga ku barakanaya ka mid ah oo laga guulaystay baa markii laga guulaystay wuxuu la yimid wafdigii new york markaasaan la kulmay waxaan ku yidhi hebelow ma rabtaa inaad barakartid oo haddeerkaan meelka ma gelaysaa ima ku ogaanaa mase waa iska dhiirtay haddii lagaa hayay markaasuu wuxuu yidhi nin baa lagu soo tuuray leef markaasuu isha ka gaar